waddanka Soomaaliland ayaa waxa uu soo maray marxalado badan oo kala duwan oo ka kooban qaybta dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka. Halkani waxay ka mid tahay baraago waaweyn oo loogu magac daray Batalaale Swimming Pool and Schools oo doonaya in lagu baro dhammaanba dhalinyarada Soomaaliland dhinaca dabaasha, maadaama oo ay ku haligmaan badaha waqtiyada taariibka iyo waqtiyada ay tagaan dhinaca xeebaha. muwaadiniin reer Soomaaliland ayay maskaxdooda ka soo maaxatay sidii ay u samayn lahaayeen goobo waaweyn oo baraaga oo loogu magac daray Batalaale. sida idinka muuqata wiilkaasi waxa uu waqtiga ku jira dabaasha isagoo ku raaxaysanaya qaybaha kala duwan ee dabaashu ay leedahay. Bulsha TV ayaa waqti hore tagay goobaha dalxiiska ee Batalaale Swimming Pool and Schools ee dhinaca waqooyi ee magaalada Hargeysa. halkan waxaa ku yaala barkado aad u waaweyn oo loogu talagalay in dabaasha lagu baro dhalinyarada Soomaaliland. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland oo Bulsha TV xilligan kula kulmay iyagoo ku jira dabaasha ayaa waxay nooga warrami doonaan bal faa'iidada ay leedahay dabaashu waqtigii ay yimaadeen iyo sida ay u barteen dabaasha. inteeda Batalaale Swimming Pool halkan waa Batalaale Swimming Pool barkada laga furay muddo horena waa la furay. marka waxaan dhalinyartayda kula talinayaa inaad dabaasha timaadaan. badii waa laga maarmay markoo dabaashi way fududahay. dabaasha waxa kamid ah jirka furfurtaa, maskaxda daawi u tahay oo waxay u fiican tahay ardayda gaar ahaan ciyaartoyda. waxaan ku baaqayaa dhalinyarada da'dayda kuwa iga yar inay imaadaan imika waxaan dabaalan karaa ilaa 500 oo mitir iyo wax ka badan. waxaan soo jeedlaa waxaan odhanlaa badan iyo waxaan lagu dhimanay iska dayo barkado waaweyn babarsaga ka furo Batalaale Swimming Pool. marka macallimiintu joogaano dad baraya jooga marka imaadan laana dabaashu aad iyo aad bay faa'iido weyn u leedahay. ani xitaa dadka faa'iido badan bay u leedahay wallahi dadka bariga dabaasha ma taqaan geesta kale waxaa barbar socda oo iyaguna aan ka maqnayn in laga waraabiyo dhammaanba xoolaha geela iyo ariga oo halkan laga qoday celal waaweyn oo riiga. waa Batalaale Swimming Pool ee magaalada Hargeysa. Bulsha TV ninka waqtigan soo arooriyay geela ayaa uga warrami doona bal geela halku ka soo arooriyay iyo sida uu uga waraabinayo. anigu waxaan wadaa geela waxaan ka soo arooriyay deegaankan ayaan ahay xeedho. geel waxa weeye riiga ilaa intii la dhisayba geelu ka cabayay. waxa weeyaan adduunka ka cabayena nabadii caanu ka cabayay. waxa weeyaan wax lacag cid kama qaado wax dabadeed biyo waaya male nimcu ku jira. aan waxaan wadaa arigan waxaan ka soo arooriyay xeedho inta riigu taanaan waan ka cabanay. riiga bilaash baa la noogu waraabiyaa xoolo dhaqatada hataanu nahay xeedho. intaasoo dhan wax lacag la nagama qaadin. ilaahay mahadi weeyaan waana khayr. ilaa reeguraaga halkaas soo degaa waa loo waraabiyaa waana ilaahay mahadi baan ku joognaa. riiguna waa riiga ilaahay barakeeyey oo xoolo dhaqatada ilaahay u barakeeyey wax lacag oo laga qaadaa ma jiro. anigu waxa la qoray meeshan xoolaha waraabi mar walba soo shid mar walba yaani xoolaha sibiyo weyn ilaa iyo 3 sano uu Batalaale furay yahay. anigu waxaan joogaa un kabadhac ilaa qorx soo bax inta waan taagan waxaan ka shaqeeyaa bahalahan xoolo ka cabayaan dararkaas geeli loodi arigi waxaas ka shaqeeya. Umar Cali Bulsha TV Batalaale Hargeysa.